مدن مدحويني حفيزك إنسان كبنتلان muddo hadda 3 casha uu joogay xaruntan shalay wuxuu soo dhaweeyay oo qayb ka ahaa soo dhaweyntii doontii ugu dambeysay oo timi dekada Boosaaso waxa runtii marka hore bogaadinayna shaqada qiimaha leh oo heerka sare ah ay hayaan xarumaha dawladda oo ugu horeeyo gobolka iyo degmada oo ugu horeeyaan iyagana amniga hay'adaha amniga maamulka dekada hay'adaha maxalliga ah oo NGO-yada ah ay hayaan bulshada guud ahaan gudiga hadda laga dhawaajiyo uu ku hadlay halkan gudigaas shaqada ay hayaan shaqadaas waxay tusinaysaa inay tahay shaqo horumarineed in naloo soo barakaco oo aan xaqiijino in dadka soo barakacay si nabad leh ammaan leh oo aan xuquuqdoodii wax dhiba gaarin in la soo dhaweeyay ay dadka ka amaan sheeganayaan arintaasi waa arin sharaf leh waxa weeye waa arin muujinaysa sida dadka reer Puntland u bislaadeen sida xuquuqda dadka u ilaalinayaan annagu shaqadeeda wax kala ma mudan madaxweyne inaan ku taageerno hay'adaha shaqaynaya shaqada ay hayaan oo ay dhowraan xuquuqda dadka aadanaha waana arin aan hadda ku faraxsanahay hadda shaqada la hayo arinta kale labaad waxay tahay inaan tala bixin siino had iyo jeer xaaladaha sida ay yihiin meelaha ma taqaana guddoolaha ka iman karo inaan tala bixin ka siino arinta saddexaadna waxay tahay inaan u qareeno dadka kan barakacayaasha ah aan uga qareeno dadka gudihiisa iyo dibaddaba shaqadayada saddexdaas arrimood way mudan madaxweyne waxaan u taaganahay oo aan hadda qorshe noo ah inaan samayno miis caawin ah oo had iyo jeer dadka kan ay xuquuqdooda iyo shuruuc waxay u baahan yihiin lagu caawiyo loogu warramo